waddanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo saacajiba ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin Hindu soo gaal oo mushrik oo waddanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninka muslimka ganacsadaha xiriir baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibta u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia laga helay badeecadahaas markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad u saari jiray ama container markab u saari jiray ninkii maal qabeenka ahaa reer Australia ahaa Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamaciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka markaa la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaa ka iibsaday ii soo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbukay markaas yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka waa la cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ilaa yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday waa sanad beero san dheero gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas wixii culimada inaan soo weydiin in shariicadeedu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay oo iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaan inuu shariicada islaamka ku dhaqmo maxaa banaanayn maxay shariicadu banaanaysay maxaa si banaanayn uu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadayda igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo waana xadiis saxiix oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam uu sheegay ويا منك ورنت أوصنا صاحبها حين وضع معاملون إليه هذا هو قاضي ويدين ما يمقاضي وحكى أنيقا وحكى له حلال هذا ذيك كنتو وانكو صار الديانة لكن كان مقاضي دين تيدان عيسى ما حين نكون قاضي قبل دي سيبا مركا إنتي ودلبا فكرس وقبل جامعية habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tidhaahdo ninkan muslimka inta oo sanad la mucaamaloonaysi muxuu noogu qaadi waayay bay tidhi ilaahay jaaba waa diintiisa oo gulina naga daabuudi aba raay baan ka qabaa bay tidhi halka raay baan ka leeyahay raaygan ka leeyahay waxa weeyaan baalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo مسعون كرا أي لبا لعق سكب بحكري مايو ديارة كرسي فريسة كري مايو صدق هذيك واحد يقدر دعسي أو ضوية يقدر دعسي أو هذيك كذا دعسنا بايدين كنا دبولا يمر كدبات النقبتي حبرين وعيت راني أرنت أسمع مسكحنا لما جلسيت وركلا كان فكرت لكن مسلم كيف التلفون كيس قبضتي ولا هذا الشيء وعيت البريد ولا نكو أركان دونية وأيوه وأين أنت وضعك عن كاسة ودلي ويانا ما أنت قلت يا أبيه الله صوتي أبيه الله صوتي إيه كلام بالبو مركا ومرتد هذا مركا قلت من ده وحو مركا إسلام تيسي وصوك حيستي حجابا وقبر متدينة ده مركا سي وصوك شمتال كي هالكابا قولي فريستي وعيت الأنو أذيك أن قلب الله من روحا كلا قلب فرد محيته وحول روحا كلا وحاسكي دين تيد الإسلام كو إيما أقبلان عيسو إنا أديك كلك اليوم لماذا واكو قيا أديك محرم باديتي محرم إيمتي محرم بادو بانت نبي محمد بايري نن الناقة جانب ينوسن لك اليوم إلا محرم كي يقول لك جوغا مويان عليه الصلاة والسلام تعالى ارتقع بكتر قلب قيدي للدين بال يا باشا تعالى وعيت السؤال بك ويدينا يا دين تاع هذا هو محي وإسلام يا ذا مسنتها أي شيء الله أنا مسنتها لا تدركه الأبصار وهو
يدرك الأبصار عيرك أبورة لك أبورة مركا هالكي فرصة واحد من نقطة إنه نكي قبل دعوة السيد إنه يدي هالكي كو إسلام إنه هوتيلك يكون نقطة إنه هو يدي أبيه يدي كدنا دعيس دين الإسلام كا ولا بدي والد دعوة وين أي كوكن عن دين الإسلام مسوق الله هداية مركا